kuna wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan halka naga daawanaysaan waa Astaan Sports waxaan wareysi gaar ah ka qaadi doonaa Jamaal Axmed oo kamid ah ciyaartooyda kooxda Goodir ee sanadkan ku guuleystay horyaalka. Jamaal markii hore ku soo dhaw Astaan. ku dhaw walaal binde ku dhaw Astaan Sports markii hore Ilaahay baa mahadle marka labaadna TV-ga quruxda badan sida sharafta leh isoo agaasimay ama isoo marti qaaday wandhawahay walaal binde. وهاجاك جمال سنة كان واحد كوجول استهريال كأديكو كمية يرتوي كوحد الجودر سيدو كلنا قبل كتاد مربط كل جول استيرتك قبل السومال لا بضع كوب حكاية قد جيني كوجوليسكو. ارتوي سؤال في عن ارتمر كوري الله محله وحان إلهي قدر مدعان إلهي بأنا مهدا إسكاله سيوسكنا تمهداسي ورتا كوب كان 21 كا إن كل جول استكوحد الجودر doorta aad iyo aad bay day shucuurtayda u kacsaneed markaan kula guuleystay waa anigu og inaan koobkii gobolada ku soo guuleystay ayaan ku guuleystay 2021 kiina koobkii horyaalka Soomaaliland marka de shucuurtayda aad iyo aad bay u kacsaneed waan ku faraxsanaa kooxdeeda aan kula guuleystay walow doo noo saamaxay macalinkayga iyo isku xirnaashayga kooxdeeda Goodir uu noo saamaxay inaan ku guuleysano koobka 2021 kama horyaalka Soomaaliland laga qabtay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa wax Ilaahay lagu mahadiyo wax aanay ciyaartoyadii ka horreeyay aanay sameyn marka samayso ama ay ku hirgalaan horta waa waxay shucuurtooda aad u kacayso ku faraxsanaanayso yaa ka saaciday bal soo dhan kara ku guuleysiga labada koob ee horyaalka kooxaha koobaad iyo tartankii gobolada wallahi horta haddaan koobka gobolada u soo noqdo naadigayga gobolkayga Daadmareed haddaan u soo noqdo horta gobolkaasi de aad iyo aad baan xagan uga salaamaya marka hore waxa noo saamaxay baan filayaa isku duubni dhexdeeda iyo macalin wanaagsan oo dana soo gacan qabtay oo mar walba dhiiri gelinay haday de xagga diinta noqotay haday xaggii tababarka iyo kubadii noqotaba doorta dhiili karin buuxdaan ku haysanayo de maamulkayga isku duubnaayo iyo macalinkayga aad noo soo dhiiri geliyay aniga shakhsiyaantayda haddaan ka hadlo macalinkayga doorta walow isku xaafadnay haddana eenay de shucuur badan ayuu igu soo kordhinayo de sidan sameey dhiirigelin far badan ayaan keeli taasana ay sababtay inaan anigu xagga aan maanta joogaan imaado وهاجاك كلمة جودر على عيارتي هذا دولستاجو كلهم كي كوجو أتكا كل ندفاعات هاي كلمة ضمن وكل حسب بدين ويريان كي كوجو بتبنى أنت هريال كسعودي يوه horta wallahi hadaan kulankii ugu adkaa u soo noqdo kulankaas wuxuu noqonayaa kulankii aan aniga iyo kooxda dawladda hoose horyaalka ugu dambeeyay aan wada ciyaarnay kulankaas oo de walow ay naga badiyeen haddana de kulankaas aan filayaa inuu kulankii ugu adkaayay laakiin ciyaartooyda weeraryahanadana de kale weeraryahanadu aniga waa isku keen mid shakhsiyaantayda de weeraryahanadana wallahi horta waxaan de ma si kala qaadi kara laakiin waa isku keenmadu laakiin de ninka ugu dhib badan baa jiraan kara oo gambiskiisa iyo shaqadiisa way tahay mid ka duwan nimanka kale weeraryahanada Soomaa laakiin wallahi wali alaanka ma arag nin igu dhib badan oo sidaas aan u raaw igu dhib baday oo culays badan ku saaray waxa kulmada wad ciyaartay in sidoo kalena de walaalkaaba isaguna kamid ah kooxaha heerka koobaad isaguna loolanka wuxuu qabay inuu ku guuleysto horyaalka inkastoo goboladii tartanka ku guuleystay isku horimaadkiinu muxuu dhaliyaa horta wallahi de aniga caqabad igu noqotay markii igu hor imanay walaalkay markii igu hor imanay caqabad weyn baan dareemaa inkastoo de walow isaguna kooxda asluubta u ciyaaro oon ku tirsaneen gobolka Daadmareed isagana aad baan xagan uga salaamaya wallahi de horta waxaan ku tilmaamay ma garanay markii igu hor imaadaba صح وهاجاك kulamada sheegto waxa kamid ah kulankii ciidanka dawladda hoose la ciyaarayeen sidoo kalena weeraryahan madax xusin waxaana kamid ah difaacyadii gool dhaliyay intuu horyaalku ku socday difaacyadii lagu tiriyay inay goolasho dhaliyeen goolkaad ka dhalisay kooxdii ka soo horjeeday muxuu kaaga dhignaa la goolkaas horta de aniga shakhsi ahaantayda iyo kooxdeedaba guul muhiim u noo ahaa de walow aan anigu de goolkan dhaliyay oo de ujeedadaydu haydo inaan kooxdeeda aan guul ku gaadhno de oo kooxda asluubta aan ka dhaliyay de goolkaasi gool wuxuu ahaa anagu wax ku doonay goolkan iga horeeyay marka rijo ayuu ku abuuray miyaa goolkaas goolkaasi rijo ugu abuuray wallahi aniga iyo kooxdeeda Goodirba de horta si fiican ma goolka ugu soo kabanay aan kooxdeeda ka caawiyay وهاجاك ugu dambeyn inakoo wareysigii gabagabadii ku jirnaa de nin difaacaad hay waana adagtay laba tartan oo isku xiga sida uu nin ugu wada guuleysan lahaa horyaalka la ciyaarayay 18 kulan iyo gobolada iyo kulamo badan la ciyaarayay maxaa aad rajaynaysaa mustaqbalka kubadda cagta ahaan wallahi horta waxaan rajaynayaa walow aan ku guuleystay laba koob oo muhiim ah haddana horta labada koob ee muhiimkan ku guuleystay
aniga dhiirigelin bay iga dhigantay oo dee anigoo dee wax yar kubadda cagta ku dhex jirayba haddana inaan laba kuwa muhiima ku guuleysto dee dhiirigelin bay iga dhigantay dee iminkana waxaan rajeynayaa kuwa iyo qaar ka badanba inaan kula guuleysto kooxdayda Goodir oon rajeynaya inaan koobka championka ee lagu qaban doono gobolka Berbera inaan kula guuleystaan jeclahay kooxdayda Goodir. waa hagaag goolashaada kooxdaada Goodir intii gool dhalinaysa goolka ku qurux badnaad aragtay goolka waa wallaahi goolkii ugu qurux badnaa ee arkay wuxuu goolkii Cuud dhalinay oo kooxda biyaha ka dhaliyay kubadda uu soo socotay uu raaciyay goolkaas ayaga qurux badnaa isku xidhkan iyo inaad intaasoo dhibcood ku qaataan horyaalka marka macalinka laga yimaado shaqada kale in dheeraadka maxay wallaahi shaqada kale noo dheeraadka waa kabtanka iyaga oo mar walba na dhiirigeliya isku kaaya xidha oo dee marka macalinka laga yimaado uu dee isagu garoonka dhexdiisa dee uu isagu isku xidh fara badan ka sameeyo uu na dhiirigeliyo oo isku kaaya xidha iyo kooxdeedoo deeniyow isku duuban oo dee aanu xaggaa isku duubni fara badan kooxdeeda Goodir aan kusoo gaadhnay annagoo dhammaystiran aanu isku duubni kusoo gaadhnay halkan yaad ugu mahadnaqaysaa cidaad ugu mahadnaqayso aad odhanayso 1 iyo 2 iyo 3 baan ugu mahadnaqayaa runtii aad kii garab taagnaa yaad xusi kartaa horta marka hore Ilaahay baa mahadle mahadda koowaad Ilaahay baa u sugnaatay mahadda labaadna waxaan mahadnaqayaa family-gayga iyo hooyaday aabbahay ka yihiin walaalkii Maxamed Axmed Aadan oo aanan dee family-gayga dhammaantood oo soo dhiirigeliyo xagga dee garab taagan mar walba ay dhiirigelin xagga waxaan mahadda saddexaad uga mahadnaqayaa macalinkayga Jamaacanta iyo macalinkayga Dirdhaba oo labadoodaba leeyahay laba nin oo aanan marnaba dee ilaawi karin abaalkoodana aanan gudi karin halkan sharaf aan ugu hayaa wallaahi aad u mahadsantahay waa hagaag daawadayaal kaas waxa waa Jamaal oo nagu soo booqday studio Stan Sports isagoo ku wada guuleystay tartanka gobolada Soomaaliland isagoo matalaya gobolka Daadmareer iyo kooxda Goodir oo ku guuleystay horyaalka kooxaha heerka koowaad waxaan igaga tagnaa sida salaam alaykum